Edmund ina dhobaala oo barsoorka jaamacadda Simid la dilay aabahay ninkii dilay waan cafinayaa inkastoo dadka ana ka aqoon balse hadduu maqlay waxaan leeyahay waa ku cafiyay walaalahayga yarna waxaan u sheegayaa ayagana inay cafiyaan hooyaday dhammaan ehelkii qaraabada waxaan leeyahay halkaas aan ka wadno Soomaalina ha isku wada imaato hala was cafiyo nin walba ninku wax ka geystaa cafiyo markaas ka bacdi baan isku soo wada noqon karnaa hadduu Ilaahay yiraahdo aniga kula hadlay aabahay la dilay aabahay ninkii dilay maanta magaalada jooga alxamdulillah waa nin samahawna dilkii oo geystay macnaha waxay keentay faa'iido oo qofkii dhibaatadii markii hore uu ku sii jiray wuu joojiyay laakiin maalintii anaga haddaanan dhihi lahayn aabahay ninka dil in loo dilaa rabnaa macnaha waxay keeni lahayd macnaha dadkii kale asaga la midka inay sii kordhaan dilalkii dhibaatadii ay sii geysanayeen laakiin cafiskii anaga aan cafinay iyo wixii wanaagii aan sameynay ninkii wuxuu noqotay last time uu wax dhaco dad dhibaatay ama dad dilo qofka markuu bulshada sa sameeyo oo gurigeena aan ka bilaawno cafiskaas waxay imaanay maxaa la lahaayay in bulshadii wixii la kala haystay wax badan ay fudaadaan in la isku celiyo waxa cafiyay ninkii noogu weynaa reerka ninkaas noogu weyn reerkana kaligiis go'aanka muusan qaadanin waa ku qanca qasab waay macnaha faa'iidada ay leedahay in macnaha ninkan oo nool already aabahay oo dhintay oo waqtigiisa meesha ku ekaa laakiin nin kale oo nool oo maxaa la lahaayay maanta macnaha geysan kara maxaa la lahaayay kaalmo kala keeni karo kaalmadaas oo tii reerkiisii deegaankiisii iyo ku soo kordhin kara ina maanta aan dhahno nafsadiisu aqoonsan wax micna ay sameynayso laakiin wax micna sameynaayo ninkaas inuu noolaado dunida baaqi ku ahaado wanaagan oo sameeyo intaas muhiim ah intiin waa waxa ugu muhiimsan ah ninkan maanta waa wanaag uu sameeyo dad diintii faafinayo ku jira marka waana ku faraxsanahay midaas subax sabti anoo gelayaga la joogo oo barwaaqadu gudub dhisayna yahayo qaar dhalayo qaar noo dhalayo haruub yaraan iska shito macuusta labada rugi joogto dangad habeed aan shito reerka anu waan ka dhashay reer malaa'isir hayeen oo anu aan ogeeyay niman ka socda ay yimid oo kadibna intay qabteen qori dhuunta iga saareen bal sideed shir iyo qori dhuunta anoo sideed jir hadda aragtaan oo dhuumanahay bal anoo sideed jir qori halka la iga saaray intuu ka sheekeeya intay qori halka iga saareen oo indhaha iga duubeen bay geeri anigii isku kaaya ka haysteen 3 saacadood ninka dheereeya ee aadka u socda 3 saacadood meel loo socdo markay marinayeen baa waxa isku qabsadeen inay dilaan iyo inay sii daayaan 3 nin bay ahaayeen dadku way kala naxariis badan yihiin oo marka dagaal dhaco iyo marka arrin kala dhacdo iyo marka la sii yimaado dadku fikir ma ahade fikirka Ilaahay baa dadka u qaybiyo sida fareenaas u kala dhaadheer yihiin oo fikirka dadku u kala duwan yahay laba nin baa waxa isku raaceen cod la qaadi lahaa asaas la igu dilay lahaa maanta ma joogeen laba nin baa waxa isku raaceen in la dilo aniga dhahay waxa lagu doodayaa marka waxa la yiri waa cadow soo koreeya oo nin reehel aan dillo mid baa hadlayo labadii ka doona wuxuu yiri niyo inta soo curad yahay oo gabadhi ku indha kulanaysa keligii ay dhashay marka aynu iska deeyno inta soo boodo baan ku marka ciyaar badan baa iga hooseeyo la dhashay baan ku hooyaday keligii bay dhashay walaal hay dilin ilaahay ka cabso keligii bay walaal hooyaday waxa ma dhalin abaahayna wuu badhintay abaahayna wuu noolyahay marka wax dama dhal maayo walaal hay dilin maayo nimankii adigu arrintii may dhagtala uma siin way doodeen kadibna kii ay doodiyay baa la kaxeeyay halkaas la geeyay rasuulna qofka meel boodiisa ma arkan yaa qofka dilaysa adoo suu duuban yahay tay inaga daayo magaxma inaga raacaysa abaar wadi hadalkii ku dhigaa marka labadii nin ay damacsaneen ay dilaan mid kamid ah wuxuu yiri soo xabad lama ridayo oo meeshu ma filan ku waatu xabad haday dhacdana ninkii garanaya way qaylisaa xabad waxaan way garanaa Soomaaliyeed kadibna wala soo yaacay nimanku wala qabanaya wuxuu soo horta qoriga aynu ku dillo salayno ma qalo aynu ku dillo kadibna adigu Ilaahay tacaala hadalkiyo kooban nimanka waxay soo raaceen inay sii daayaan meesha la igeeyo waa buuro waa habeen waa adigu 12 habeenimo markii qorraxdu dhacday ilaa iyo 12 kilo waa la weeyay in qornayaas ka tan isu jirto markii qorraxdu dhacday ilaa 12 habeenimo wala sii daayay markii la sii daayay geelu meeshu u socday u jeeday xaqu ka jiray geelu waan eegay waxaan kartay inuu xagga reerkii naga xigay meeshu geelu ka yimid waan wado meeshu kadib wadadii baan bigiriday anoo inaan dhintay inaan noolahay xogaa shakiga jiro waxaan orday adigu magaaladii geelu ka cabi jiray baan dusha kaga dhacay iyadoo la hurdo nimankii markaa anoo jaanis ka faa'iideysay way nool yihiin waa aqaan waa isnaqaanamo anoo jaanis ka faa'iideysanay waa iska cafiyay hadda waxa la joogaa waqtigii la iscafin lahaa haddaynu ku dhaganaano wixii horay u jiray iyo reer hebel baasaa iyo saasaan yeeshan iyo saasaan idin yeeli jirnay goormaan adduunka wax la qaybsanaynaa goormaan dalkeenna dhisaynaa goormaan horumar gaaraynaa goormaan dad noqonaynaa haddaan marka tii hore ku dhaganaano qofku hadduu ciilkama koro noqdo horumar ma gaaro laana mar walba ciil baa haya waxa ma qabsan karo ma fakari karo wax ma ikhtiraaci karo
qofka hadduu sadarteed ba waxa la rabaa ummad ahaan inaan isu cafino waxa la rabaa inaan isu cafino qof ahaan ninkii xaaskiisu waa inay iscafiyaan labada qof ee walaalaha kuwa ilmaadarada waa inay iscafiyaan kuwa ganacsiga isku khilaafay waa inay iscafiyaan sadarteed ba waxaan rabaa haddaba intiina ay hor fadhida iyo inta ay daawanayso hal arrin baan rabaa inaan idin sheego qof walba qofka hor kula fadhiya intaad fiiriso waxaad ku tiraahdaa waan ku cafiyay waxaan ka rabaa inaad habsiiso qofkaas hadda i tus arrinkaas